24 saacadood ayaa degmadani Ceelbu iyo guud ahaanba gobolka Sanaagna waaxigiisa waxa ka daayay roobkii guga oo waxyeello u geystay qaybo ka mid ah magaalada Ceelbu gudaheeda sida laga soo sheegayo miyigana markaas uu xogeystay roobkan ay habeenkii xalay ahaa ka daayay degmadani Ceelbu gudaheeda ayaa shalay galab koodii duurnimo iyo barkii waxay ka curteen deegaamada gobolka Sanaaga waxayna ka qaadeen maanta labadiisii duurnimo waxay hayeen muddo 24 saac gaaraysa waxayna geysteen waxyeeladaasi waa kuwan bulshada ku nool degmadani Ceelbu ee gobolka Sanaaga roobku say xalay uga daayeen ilaa shalay uga daayeen deegaamadan gobolka Sanaaga iyo waxyeelada ay u geysteen iyo waxyeeladiisu dhowr guri baa waxyeeloobay aan hadda soo dhaafaynay guriga kan isna oo reerakan ba ilaahay cidi kuma jirin laakiin reerakan halka joogo ilaahay aan wax ku gaarsiin oo in aragto dhulka u yaalo guriga kale badan oo fara badan oo dadilaamina way jiraan hareeraha miyiga iyaga wararka lama wada hayo waxyeelo xoolo way jiraan iyo dad maaragtay miyada ka helay oo sida reer baadiya raxmadu dib u taasay u daaysaa walina wararka lama hayo oo cid dib u sadaayo guriga waa guri dhameystiran baa Soomaha guriga guri dhameystiran baa waa aragtay macaatinkadii waa saaray buu ahaa dhowr maqsina nasiibanaag laakiin wax cid oo ku jirtay ma jirin gurigu kan oo ag taariikhda joogno oo isku qabsanay gidaarkooda baa reer ku jiray guri hadda muddo dhisnaa ismiisuna muddo dheer buu dhisnaa gurigaas waa dhameystiranaa raxmadda roobka saad u aragtaan hadda wuxuu yeelay isaga iyo qaybo guriga kaleba وقت تقول أنا أسكنها سماها. كعيد وحمقاري مركو. واحد عيد وحمقاري. أوكي مركو دبل بعد بيه. بيه بعد بيه يقول لك دبل شنو أقول عليك تقول لك واحد بيه. ما صار حق العلم حق حياة فقط كلوكس بيه بيه تدبي. بسم الله الرحمن الرحيم سفيان بقول كسناك gaarahaan degmada Ceelbu aad ku suganahay roobku ilaa shalay tuunay inkastoo xalay marka la gaayo oo tobanka uu bilaabay xatlaana waa aragtaa roobku filhaya wadaaya roob fiican oo dhamaan ilaha biyo galaan baraagaha iyo dhaamka magaalada iyo harooyinka waaweyn buuxiyay ka daay waxyaalo badan oo waxyaalo badan oo jiro la sheegay ma jiraan guriga waxaas dumay ma ahaanay wax badan oo dhibaato kama dheen waa ilaahay xamdiga waxba sugeynay waxaan rajaynayaa inaan ku ciidno farxad iyo barwaaqo ciidkana wuxuu qabsaday koodii shalay koodii barkii meelahaas uu naga kacay maqribkii tobankii habeenimo buusna nagu curtay hadduu naga kacay kulli inta muuqata ama aan u warhayno ama telefoonada lala gaaro waxyeelada lagu sheegan maayo hal guriga waxa saadumay baa la leeyahay magaalada Ceelbuna wax dhibaato ah hadda lagama warhay wali wadada ayaa uu shuxayaa uu haystaa dhulka inta waxaan ahayn ma ogin dhulkan aad loogama warhayo roobka xagga biyihiisa iyo ka waran kulli dimension dhulka uu qabtay biyo mariyay baa la leeyahay inta warka ka hay hadda saddexdii biyaa saacada ay joogo labadii ay tahay way waa ka wareerayaan sida aan warka ku hayo ilaa buurta laama ku sameeyay guriga qarra la yiraahdo waxa la sheegay dad daar laga soo guray oo marra shan la keenay marra afar la keenay baa la telefoon la igu sheegay laamiga guriga la yiraahdo maxay ahayd buundadii sirujif bashir oo jiray waa dhacday baa la igu yiri qarkii wuxuu u guuriyay togi waa ka batay biis soolka oodaas oo dhulintan wareystay wixii xaabooyin marka waa raxmadaysan tahay aad iyo aad bay u raxmadaysan tahay tan aynu joogno roobka xagga galbeedka warumaayo laakiin xagga bariga laami ku sugan yahay nimcadaasa alla keenay waana sii socotaa oo hadda waa cusub iyo cirku buurtan waa ka soo da'ayay baa leeyahay uga soo da'ayay yeelin intaasaan warhayaa assalaamu calaykum roobabkan haatan ka daayay
puntland ama guud ahaanba gobolkani sanaag ayaa ahaa roobab mihigaana oo 24 saaci ugu dambeeyay ka daayay welina haatan roobku ay hayaan meelo ka mid deegaamada gobolkani sanaag oo ay muuqdaan roobku bartooda iyo biyahooduba وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون كعالمي Somali News TV دقمة علبه قبل كسناك